السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك وإحنا جنالكي يعني قلبي وفشل كسر وهذا عاو يموقع عصب وحصاد عاو دق وأنا لقيت حكني دق صفية تصمو وهدا والله بدي هبين نمو وقت أنا وحدين دوبيو فيديو بالسوقري أيضا بستورد لقايو كدي من اللي هي هدا أنكو جورع أما أنكو برايو يا إيجا كقبنا wiilkii hore ee ku sameeyay barnaamijka ayaa hadda video soo daayay break news ah waxaas lahaa gabadha maxaa waxa kan ku kalifay waxa kan ku sameeyay aad baan uga nahay waa jiifay waa soo kacay sida ugu dhaqsiyaha badan in aan barnaamijka in lagu socodsiiyo oo aan kaga dabageeyo muuqaalka sida hore ku daawateenba walaashiin ama walaashayada Faadimo Tusmo Safiya Tusmo oo ayaan hore aad la socoteen in mataqaanaa fiidiyoyaal dhaqan xumo ama anshax xumo ah laga faafiyay ayaa hadda war degdeg ah ka soo dhacay fiidiyooga aad arkayseen ninkii hore ee mataqaanaa gabadha dhibaateeyay ama dhibka u geystay ayaa hadda fiidiyoo wax ooda ka soo qaada ayada oo meel duhura joogto oo mataqaanaa bistoolad madaxa looga hayo oo la leeyahay haddii hadda aan ku gowraco oo aan bartatan ku dhigo yaa ogaanay cid ogaanaysa malahan oo haddana la leeyahay xagee joogtaa mataqaanaa meesha joogto gabadhu aad bay qalqal badan baa kaga muuqday gabadhan waxaan isleeyahay fiidiyoogii hore laga soo daayay barnaamijka kan shaqool la abaabulay oo dad badan ay ka shaqeeyeen inuu yahay baan qiyaasaya marka aan isku mataqaanaa aan sidaa u kasbeeyay marka aan kasbeeyay oo aan luxluxay waxa ii soo baxday barnaamijka kan inuu yahay barnaamij dad badan ee abaabuleen oo mataqaanaa dad badan ay ka shaqeeyeen oo loogu talagalay gabadha kan in lagu mataqaanaa ishaq maxaa lagu bahdilo ummadda lagu aadeeyo baan u arkay dadka caqliga u saaxiibka ah ama dadka barnaamijyada faaqideeya ama dadka psychology-ga ah haddii aad fiirisiin waa dareemi kartaan Faadimo Tusmo Safiya Tusmo magaceeda xataa waa gagafaya aad baan u xanaaqay markaan fiidiyoogan daawado aad baan u qiirooday waxaan u malaynayaa meesha lagu hayay markaas waa Afrika sida ii muuqatay ma garan karo inay tahay Somaliland iyo meel kale inay tahay ma garan karo laakiin waxaan dareemayaa meeshaas waxaas ka dhaceen inay tahay meel cadaalad ka fog gabadhaas cadaalad bay u baahan tahay qofka barnaamijka u geystay waa in gabadha cadaalad hesha haddii cadaalad jirto dii kale maalinta aqro barnaamijka kan waa la soo jinaya qof kasta oo waxaan uu soo gaaray haddii uusan ka dhiidin ama uusan ka murugoonin ama uusan ka jirircoonin wax la soo diinaya ama wax musiibo noqon doono wey sida aad fiidiyooga muuqaalka ku arkayseen waxa ay leedahay hore ayaad sharafkeyga u dishay hore aad ii dishay midil baa ii dhiman ninku marka ugu hanjabay waa ku dilayaa bay waxay tiri hore aad ii dishay sababta waa sax qofka asaga oo mataqaanaa muuqaalkiisa qaawan oo mataqaanaa ishag maxaa lahaa baraha bulshada la soo dhigo oo ummadii oo dhan ay wada aragto waxba uma harin qofkaas horaad u dishay horaad u toogatay ayaduna waxa ay tiri horaad ii dishay waxba imaad reeban ma aqaan inuu wax kala sii hayo oo soo bandhigi doono laakiin inta hadda nooga muuqato gabadhatan fiidiyoyaashan iyo barnaamijkan laga sameeyey waa barnaamij dad badan ka shaqeeyeen waa barnaamij dad badan juhdi iyo waqti iyo wax badan la geliyay sida ka muuqata fiidiyooga qiyaasta dadka caqliga u saaxiibka waa garan karaan arrintaas aad baan u cambaaranayaa weli inta aan noolaa kama xanaaqin qof aan aqoon uma danqan gabadha markaan arkay waxaan u damqaday si mataqaanaa gabadh ila dhalata camal baan uga damqaday beerkaasaa iyo ololay waa gariiray aniga dhan waa xanaaqay aad baan u xanaaqay caawa aad baan I'm very disappointed aad baan caawa u caraysanahay gabadha waxa lagu sameeyey wax mataqaanaa aad u dhaqan xun oo cisigeedii iyo sharafkeedii karaamadeeda lagu tutay waxaad arki kartaan in muuqaalka kan laga sameeyey gabadha uu yahay muuqaal markeedii horeba lagu handaday lagu hanjabay sidoo kale waxaad dareemi kartaa oo muuqaalka ka dhex arki kartaa haddii aad caqli u saaxiib tahay in muuqaalka kan markii gabadhan laga duubayay kii hore la soo deynayay in midkan laga sii hayay muuqaalka kan wuxuu ku cadeynayaa in gabadhan muuqaalo badanna ay sii jiraan dhibaatooyin badanna la marsiiyey barnaamijkana barnaamij abaabulan oo siyaasadaysan oo dad badan ay ka shaqeeyeen oo dad badan waqti geliyeen oo mataqaanaa gruubo weliba ah inay tahay baa meesha ku cad waxaan aad iyo aad aan uga xumahay gabadha waxa ku dhacay waxa loo geysto waa ka xumahay
sidoo kale waxaan aad iyo aad aan u cambaareynayaa falkaas meesha lagu geystay, aad baan u cambaareynayaa. sidoo kale waxaan aad iyo aad aan uga xumahay ninkaas oo weli mataqaanaa aan lagula xisaabtamin oo aan ciqaabtii oo mudnaay aan la gaarsiin. ninkaas oo aan ciqaabtiisii aan la kulmin, aad baan uga xumahay, aad iyo aad baan caawa carooday marka aan arkay gabadha walaasheena waxa ku dhacay. waa fal aad iyo aad u xun oo aad dareemi kartid, oo qofkii caqli u saaxiiba oo arki karo fiidiyoona oo ka dheeha karo. bal ilaah baa idinku dhaashay raggii Soomaaliyeed, bal ninkaas gabadha walaashiisa Soomaaliyeed sida ula ficiltamay ama waxa u geysanaya muxuu ka helayaa, muxuu ka faa'iidayaa, maxaa ku jira oo cilmi ah inaad gabar walaasha inta duhur geysid bistooladna ku qabatid oodna tiraa ii sheeg maxaa lahaa waa ku dilaa iyo waa ku bireena, maxaa caqliga ku jiri kara, maxaa sakiri kartaa. aad baan uga xumaa gabadha walaasheena waxa ku dhacay. inkastoo ay qurux badneed laftigeedu inaysan safarka u gelin nin noocaas oo kale mala kala gara karo waa ogahay, laakiin waxa qurux badneed meesha aad nooca safar uga galeeday inaad Mareykankaaga ka dhex xariiftanto wiil kale baa qurux badneed. anigu sida ila tahay aad baan uga xumaa caawa waxaan arkay. ninkaasna waxaan ku talinayaa haddii uu joogo Soomaaliya iyo haddii uu meel kale joogo intaba in cadaaladda loo keeno oo cadaaladda lagu qaado wixii markaas oo sharciga islaamka ah ama dastuurka meesha uu joogo u yaalla in lagu ciqaabo oo mataqaanaa oo maro. waa gabar Soomaaliyeed, waa hooyo, waa qof mataqaanaa maahan caruura, maahan qof sharafkeedii cisigeeda lagu dheelay, la bahdilay, muuqaalo anshaxumaha laga keenay, bistooladta lagu qabtay layidhaa bireenaya. waxay tiri maxaad ii reebatay tiri hadalkaa marka ay tiri horaad ii togatay maxaad ii reebatay marka ay tiri wallahi inaan been heshiin waa jircooday, wallahi waa jircooday hadalkaa markay tiri sida aad muuqaalka ka dhex arki kartaan. waxay ugu kalifay inaan saacadan aan soo fadhiisto aan kaamirooyinkayga waxay aan la kala baxo waa dareemi kartaan. qof kasta oo damiir leh oo mataqaanaa dhiig ku jiro bilaadanimo, xataa maahan islaan Soomaalinimo maaha, qof kasta oo damiir leh oo bilaadan ah oo dhiig wax yar oo beena oo ku jiro muuqaalka noocan ah hadduu arko gabadha waxa lagu sameeyey aad buu u qalbi jibayaa, aad buu qalbigu xanuunayaa. wuxuu kusoo aadiyey weliba bil barakaysan buu kusoo aadiyey. aad baan uga xumaa wax walaasheen Safiya Tusmo qabsaday. waan garabkaagaan nahay insha allahu tacaala. ninkaasna maalin buu cadaaladda ay qaban doontaa, adigana cadaalad waa heli doontaa insha allah. waxaan sidoo kale leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ku qus qaata Safiya Tusmo iyo kuwa lamidka ah ee mataqaana dhibaatada loo geysanaya iska fiirsha, nimanka iska fiirsha. nimanka waxaa ku jira kuwo bahla ah, kuwo waxaa ku jiro aan bilaadan ahayn, kuwo waxaa ku jiro aan insaan ahayn, kuwo waxaa ku jiro aan caqli bilaadan intaba aan lahayn. waxaa ku dhaca gabadha walaasha wax la fiirsan kara maaha. qofka damiir wax yar ah hadduu ku jiro waxa uu dareemi karaa in uu xanuunka ay leedahay. waxaan mooday waxa gabadha ku dhacan wax anay ugu dhacan kasoo qaada caawa sida aan u damqaday ama mataqaanaa ii sheeg maxaa la aan u gilgishay. ilaah baan ku dhaashay dhiirigeliya in mataqaanaa gabadhaas ay cadaalad hesho. sheergareeya fideogan sheergareeya si gabadhaas cadaalad u hesho. barnaamijkaas ka gilgisha. anigu waxaan qabaa ninkaas in sharciga islaamka la hor keeno, cadaaladana lagu qaado. waxa uu sameeyey wax bilaadanimada ah, wax bilaadan qof bilaadan ah oo mataqaanaa dhiig ku jiro maaha. barsadatan aad bay uga xun tahay waxa ku dhaca walaasheen Safiya Tusmo, aad baan uga xunnahay. waxaan ugu kalifi karaa inaan saacan aan kaamirooyinkeena kacsano aan muuqaal usoo fadhiisano waa dareemi kartaa. waa jacayl aan u qabno gabdhaheena Soomaaliyeed ee sharafka leh iyo mataqaanaa dareenka bilaadanimo ee nagu jiro dhiigga iyagu inuu weli shaqeynaya bay arrintaa ka turjumaysaa. waxa ku dhaca walaasheena aad baan uga xumahay. Safiya Tusmo, gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan oo muuqaalkan daawo doona, waxaan idinkula talinayaa inaad ka fogaataan nimanka noocaas ah oo aadna ka digtoonaataan nimanka aad naftiina ku aaminaysaan inaad idin kala socnaadaan oo aad ka fiirsataan. sidoo kale gabar kasta oo muuqaalkan daawata si gabdhaha kale oo mataqaanaa aan ku baraarujisnayn si ay u gaarto ku sheergareey barnaamijkan. muuqaalka ka sheergareey haddii aad tahay qof iyo ku jiro si gabdhaha Soomaaliyeed ee haray ee mataqaanaa bahalada kale weli u qarsoon yihiin ee bahalada kaga digtoonaadaan. ilaah baan ku dhaashay qof bilaadan miya ninka ta gabadha ta baawur kusoo kaxeeyay meel cidla duhur ta keenay bistoolad madaxa kaga qabtay ee yiri meesha aad joogtid mataqaanaa. cabsida ka muuqata gabadha iyo walwalka ka muuqda wax la qiyaasi kara maaha. xaaladda qofka ku jira baa gara kara. aad baan uga xumahay walaashay Safiya Tusmo waxa kugu dhacay
waxaan jeclahay inaad isheeg maxaa lahaa maalin maalmaha kamid aad cadaaladda heli doontid. haddii ninkaasoo adduunyada mataqaanaa cadaaladaada aad ku heli weydana aakhira cadaaladaada ku helaydaa. ninku khiyaanay, ku dhibaateeyey sharafkaagii iyo cisigaagii ku dhayalay inuu yahayna waa muuqataa. ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan, dadka muuqaalkan daawanaya, si gabadhaas cadaalad u hesho sheer garee. gabadha walaasha ah sheer ku saacid oo cadaalad si ay ku hesho. waxa macquul ah ninka in ay ku fudaato clipka sheer gareenta ah sheer gareedo wadanka uu joogo in la qabto oo mataqaanaa sida ay cadaalad ku heshaa dhici karto. aad baan uga xumahay gabdhaha Soomaaliyeed iyo mataqaanaa walaasha Safiya Tusmo waxa soo gaaray garabkiina ayaan nahay. aad bayna noo gelgishay waxa in haysta iyo mataqaanaa nimanka soo baxa maalmaha kan dulliga ah ragga Soomaaliyeed iyo sheeg sharafka ummadda Soomaaliyeed iyo diinta islaamka intaba ku gafi. aad baad u mahadsantihiin. waa qiireysanahay lama qiyaasi karo xaaladda aan ku jiro. aad baad u mahadsantihiin walaalaha sharafta leh ku xiran channelkayga am qalbi official waa walaalkii Royal Family oo idin leh barnaamijka noo like gareeya noona sii share gareeya commentina ka bixiya. intaan barnaamij noocan kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaa in nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.